iyagoo eedaysanaashii ay maxkamaddu xukuntay saacada ka hor lagu soo qabtay khamriga iyo xashiishka hadda halkaa lagu gooyey qaran lagu daadinayo waa caraq aan ku fiicnayn anshaxa aan ku fiicnayn islaamnimada dhaqanka aan ku fiicnayn aad baan ugu mahadnaqaynaa booliisku sida howlgalka ay joogtada ugu qabanayaan maandooriyaha iyagoo ay meeshii ugu dambeysay ee Soomaaliya ugu dambeysay gobolka bari dhul badan bay soo martaa iyagoon ka codsanayna inay gobollada dhexnaa iyo gobollada naga xiga dhinaca galbeedkana ama Puntland ha ahaato ku kala Soomaaliya ha ahaatee inay iyaguna gacan ka geystaan inay bahasha ka qayb qaataan laakiin halkii ugu dambeysay mar walba in lagu keeno ay dhibaato tahay waxaan leeyahay ciidanka booliisku aad buu mahadsan yahay shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay ciidankooda amniga oo iyaga u taagan habeenii maalin dhaxan iyo kuleyle inta lagu shaqeynaya inay gacan ku siiyaan si maandooriyaha ay uga badbaadin lahayn ummadda shantii bishii 2020 sidoo xeerariyuu sheegaba goobtan oo ah goobta fagaaraha caanka ku ah in lagu burburiyo maandooriyaha khamriga xashiiska warshadaha wax kasta oo dhibaato u ah bulshada reer Puntland ama ummadda Soomaaliyeedba taasoo ah maandooriyo masiibo ku soo korortay ummadda weeye ciidamaadkeennana wuxuu dhimaysaa jiilka soo koriyay iyo dhalinyarada hadda dalka waxtarka u lahayn baabi'inaysa weeye waa arrin u baahan in booliiska lagu dhiirigeliyo abaalmarina lagu siiyo markii ay shaqadan kala soo qabtaan hadda ka horna waxaan u sheegnay sida sharcigu yahay maxkamadda inaysan wax jixin uga sameeyeen sharcigu wuxuu yahay markii cadaaladda maraan ay ku cadaato waxaan ka qaadana talaabada ugu habboon ee sharciga meesha ugu miisaanka culus si wadajir loogu dabargooyo hadaysan xafiiska xeeraarinta iyo maxkamadda iyo booliisku iskaashan oo go'aan adag oo dhammaystiran oo cadaalad ku salaysan laga qaadan waxa weeye waxay noqonaysaa wax ummadda waxa weeye ku ah mubax wax walba cid walba isticmaashay noqonaysaa wixii digniina iyo waxa weeye wacyigelina waxa qaabilsan booliiska iyo kaliya qaybta loo joogo anagu dhinaca sharciyada kaliya ku fiirinaa waxa nooga soo talagalaysaan sharciga meesha ugu adag hadii ay ku cadaato qofka dambiilaha oo fal dambiyeedka kale ku jiro ummadda masiibo ku ah inaanu ka qaadno waxaan hadda booliiska iyo laamaha ammaanka amrayna in goobtan uu fuliyo waxaan leeyahay maxkamadda iyo xeeraryaha uga mahadcelinayaa shaqadii aan qabanay inay iyaguna sharciga waafajiyeen iyo waajibkii laga rabay aad baan u mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa ciidamadii booliiska ahaa oo shaqadaa qabtay oo shaqo aad iyo aad dal iyo dadba taraysa qabtay saldhigga bartamaha iyo saldhigga baalade gaar ahaan markaan idhaahdo oo shaqada xoogeeda iyo waxa weeye horgeyntii hogaanka booliiska iyo ay soo diyaariyeen ay miro dhal tahay maanta maxkamadda xukunka wixii maandooriyaana meesha lagu gooyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa waxaan raacinayaa oo kale dadweyne annaga horey baan u ballan qaadnay wixii sharwada ama shabaab ha noqdo ama daacish ha noqdo waxaa nooga sii xun ninka maandooriyaha ku samaynaya magaalada oo dhallinyarada iyo jiilka iyo mujtamaca ka leexinaya waddada saxda ardaydii iyo gabdhihii iyo hooyooyinkii iyo guryihii geynaya ku samaynaya warshado iyo kuwa jiimam lagu sheegayo gobollo kale laga keenay wadamo kale laga soo qaaday booliiska Puntland markaan iraahdo hadda waa arkayseen abid midkii ugu weynaa garow waa lagu gubay oo khamro lagu gubay gobolka caan buu ku noqday in weyd inaan la ogolaan wax khamro ama lug leh muqaadaraad inay dadku isticmaalaan waxaan uga digaynaa cid kasta oo ku lug leh inaan talaabada ku habboon soo laabano inaan maxkamadaha u gudbin doono inay iyaguna say sharciga u waafajiyaan gudoomiyuhuna hadda sheegay inay sharciga la tigsanayaan aan meel looga asmaxayn marka waa uga digaynaa inay falalkaas qofkiis kasta lagu qabto dadweynaha gobolka bari gaar ahaan degmada Boosaaso waxaan leeyahay nolol shaqayseen oo 100% ah inay markas xogta u wadaagno in aad aragteen waxa in dhibaya ama dhibina ku ah ama mujtamaca dhibaya inay qof walba mas'uuliyadiisa ka qaato iyagana say nolol shaqeeyaan aad baan ugu mahadcelinayaa si dhow iyo si dheerba anaa kuwa habeenkii shaqeeya kuwa maalin shaqeeya waa la shaqeynayna saacad kasta oo aan helaya hadii alla idmo saxaafadda iyo ciidamada dhamaantoodna waxaan leeyahay saxaafadduna waa midda ummadda u tabinaysa iyadana waxaan leeyahay goor walba inala joogtaa aad bay u mahadsantahay waxaan leeyahay shaqo adag baa haysaan inkastoo hadda saxaafadda meelo badan ay kana noqotay waxaan leeyahay meesha fiican hadda u badateen meesha fiican baan ku ognahay aad baan ugu mahadcelinayaa